السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka hore si degan u daaw muuqaalka hana degdegin waxaan kula wadaagi doonaa sheeko aad la yaabi doonto ha yeeshee marka hore aan si kooban u daawano si kooban aan u dhageysano dhagahana fura gabadha Soomaaliyeed ee sharafan ee qiimaha leh ha yeeshee iyada uusan ku socon warkeena ayaan rabaa in aan idinla wadaago waxa ay sheegayso adigana qaybta hoose igu reeb waxa kaaga baxay warkan adiga oo aan fududaanaynin adiga oo aadan duraynin gabadha Soomaaliyeed ee qiimaha badan ee sharafta badan أنا قفك لعك قاعد لي بجعلاقو قفك لعك سين جعليه دول عك سنين أو ما أنتوا وحروا سنين وحجر معها هكذا صاحب كيف حاولتي كرنا إنا وحكو إنا ناكو أركو إنا ناكو أركو إنا ناكو أركو بسوي هذا المجرم مية مركه waayahay dib u soo laabo gabadhan qiimaha badan ee sharafta badan oo kamid ah gabdhaheena Soomaaliyeed ayaa la wareystay waxa la yiri oo la weydiiyay su'aal ah maxaad ugu jeceshahay marka aad saaran tahay koonkan ama adduunka aad joogto maxaase wiilka Soomaaliyeed ku nici lahayd maxaase ku dooran lahayd waxay bixisay laba su'aal ama laba jawaab oo cajiib ah oo aniga iga yaabisay adigana laga yaabo inay ka yaabisay qaybta hoose igu reeb waxay tiri marka hore tii farxisada ahayd ee doolarka ahayd ee awoodaarka ahayd oo qof walba uu jecel yahay waxaana ay ku yihiin gabdhaheena qaar ee Soomaaliyeed dhamaantood ma ahan waxaana ay ku yihiin qaarkood inay jecel yihiin alaabta bidaarta ay tiri durbadiiba ninka Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed ee raba in uu ila haasaabo ama ishu kaansado ama guur uu ila sameeyo marka hore waxa ka horeysa maalmaha wada socodkeena iyo wada xaajoodkeena in bahasha uu soo qufo laakiin haddii jeebkiisu ay baranbara ku dhaleyso uu shid uu yahay aniga waxay taagan tahay banaanka ayaan ka ahay waxaan jecelahay tiri in aniga jeebka la igu shubo laakiin aan la iga soo saarin bahasha ka gudub midda kale oo dumarka qaar caan ay ku yihiin laakiin dhamaantood aysan ka wada sineen waa in gabadha Soomaaliyeed aan gabar kale lala guursan oo kaligeed uu ku koobnaado saygeeda waxay tiri taas gorgortan kama taagna haddii aan ku arkana go'aan ayaan hor ugu gaaray waana u sii sheegay ay tiri ninka aan aniga la socdo xilligan ama mustaqbalka aan guursan doono gunta iyo gabagabada mowduuca ayaa wuxuu yahay marka waxa ugu badan ee rag iyo dumar ay ka sameyn yihiin miyaysan ahayn farxisada gabdhaha oo kaliya miyay u gaar tahay arrintaasi inay aad ugu waalan yihiin mise ragga Soomaaliyeedna iyaguna aad ay ugu waalan yihiin sidoo kale haddii aan su'aal ku weydiiyo gabaray adiga ninka Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed haddii uu noloshiisa dhacsanayo ee uusan awoodin waxyaabaha caanka aad ku tihiin qaarkiin ma diidi lahayd sida gabadhaanna ma ku raacayd warkeeda mana aaminsan tahay haddaba warka wuxuu yahay haddii aniga aan ku darsado wax yar oo iska tuurasho ah ka joojiya gabdhaha ayaan leeyahay joojiya yaan lagu xirin wiilasha iyo walaalihiin Soomaaliyeed inaad kasta marka hore ka sii cuntaan kadibna qaarkiin aad ku boodaan ama in aad xujo iyo xeyndaab uga dhigtaan in bahasha awoodaarta ah oo qof kasta uusan haynin in uu soo tubo kadibna sidaasi aad ku aqal gashaan. Assalaamu calaykum muuqaalka la sii gudbay.